waxaan sheekha weydiinayaa muxuu yahay xadka masaalixda iyo mafaasidda lagu kala garto xadka masaalixda iyo mafaasidda lagu kala garto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد دينتنا حنيفية قاعدة أي كتاغنتهي اللو يقانو قاعدة القواعد أساسك أي سقوط ماده أي وحو يهي جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها إن وحي آدمها مصلحة أدون كيسية آخر ديسة لو سوتشيدو لو كيلو لنا كبعية مصلحة أو لكرديو وحي مفسدة إدب أنا إن لغهر تقول لباتشيو haddii la wada baajin kari waayana in la yareeyo waa asalka diinteennu ku taaganta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aanka iyo sunnada wuxuu u soo dejiyey limasaalix alcibaad addoommada maslaxadooda iyo danahooda in la tuso wixii dhib ana looga digo laga baajiyo adduuniya aakhiraba ku imaan kara qaacidada markaan u nimaadno maslaxada iyo mafsadadu xad ma leedahay bimacnaa wuxuu ka wadaa saa'ilku daabid ma leedahay jawaabtu waxay noqonaysaa dhowr dhinac inaan ka tilmaanno dhanka koobaad horta maslaxa iyo mafsado miisaankeedu waa shareecada miisaanu almasaalix walmafaasid waa shareecada hawada bini aadamka iyo siday la tahay ma aha يعني markaan doonayno maxaa dhib ah maxaa dheefa miisaankee lagu gartaa shariicada lagu gartaa quraanka iyo sunnada lagu gartaa iyo wixii laga qaatay laakiin hawada bini aadamkiisa siday la tahay ama uu jecel yahay masaalixda iyo mafaasidda miisaan uma ah waxay islaamaba keeni karaba ruuxba waxba la quman waxba la wanaagsan waxna waa la xun yahay marka uu fiiriyo maskaxdiisa garaadkiisa iyo hawadiisa marka taa wax lagu miisaamo waa qodobka koobaad ama daabidka koobaad oo dhihi karno miisaanku horta waa shariicada wixii iyadoo ay maslaxa ka dhigtay waa maslaxa wixii iyadu mafsada ay ka dhigtayna waa mafsado waa qodobka labaad shay kasto oo la samaynayo tilaabo kastood qaadayso waa inaad fiiriso maxaa ka dhalan kara waxa loo yaqaano اعتبار المآلات يعني مآلات الأفعال والأقوال فلك أتصمينيسي هذا الكاتكو هالليس محاك إيمان كرا محو حنبارسين هاي أما كتلان كرا وأما الدفع أما الدفع وحاكو صباحي مركا شن صورة كو صباحي سواجه مركا اسويديسو حاكا صباحي شن شيئا إنو مصلحة كريه يفائدو ومفسد بين الله سعني أما ما هو مصلحه لكن وحوجا مفسدة أبا كتيرته ودف دب على الصعدة لكن دف تكبر لوضع حاله ويبنان تايمر كاو شيء أما واجب أما مستحب أما مباح بالنقطة شيء واجب السمين تيسا أما الصنعة أما إسكاب النام بالنقطة وأمركم مصلحة كلية هي أما مصلحة حوق بدنت صورة كلا وحويان إنه الشيء أنا متلاوضا نتقاضي الصور لبقية دافع حنبارسين لكن لب كيسو بدنيه أما لب كلية بيهايبة دافع بكم مجرد مصلحة بكم مجرد ومفسدية لب كلية أما لبقية دافع وكتشران لكن لب كابضا لبضا الصورة وحاران إن أدمركا تلاوضا أدقاته tilaabadaasi marka xaraam bay noqonaysaa laana ama dhibkiyo khaalisa way ama waa dhibkiyo qaaliba oo raajix waxa inoo soo haray hal suuro ah in ay maslaxada iyo mafsadadu isla ekaadaan dhibkiyo dheefkii marka labada kafadood saartay labadoodii waa siman yihiin markaas sida raajix ah
shaygaasi wuxuu noqonayaa xaaraan inaad samayso ku tilaabsato xaaraan bay noqon maxaa yeelay marka waxay ku fadhidaa dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix yani mafaasida in la reebo ayaa ka horaysa masaalixda soo jiidideeda xaaladaasi waa xaaladda la yidhaahdo xaalatu tasaaxum almasaalix walmafaasid masaalixdii iyo mafaasidii baa isla ekaadoo iscidhiidhiyaya marka mafsadadaa la hormarinaya shaygu marka xaaraan buu noqonaya shantaa xaaladood bay markaa u kala baxaysaa dawaabidda ay culimmadu u dejiyeen mar dhankaasaan ka fiirinaynaa dhan kale waxaynu fiirinaynaa oo iyadana fiiro mudan shareecada axkaamteeda iyo masaa'isheedu waa maraatib martabado kale waaweyn waa qayb waxaa la yidhahdaa daruuraat qaybna waxaa la yidhaahdaa xaajiyaat ama xaajaat qaybna waxaa la yidhahdaa taxsiinaat daruuraadku waa wax bini aadamku uu dhibaata gaadhaysa hadduusan helin dhib baa ka dhalanaya diintiisa naftiisa caqligiisa xoolihiisa cirdigiisa iyo sharafkiisa dhib baa soo gaadhaya daruuraad baa la dhahaya waa martabada hore martabada xigtaay wax weeye xaaja la yidhaahdaayo waa baahi aadamuhu qabo laakiin hadduu waayo cidhiidhi buu gelaya laakiin dhib weyn gaadhi maayo laakiin cidhiidhi buu gelaya xaaja la yidhahdaa taana taxsiinaad baa ku xigo waa kuwa ka hooseeya laakiin lagu qurxiyey kuwa hore ama waxay qurxinaysaa xaajiyaadkii ama waxay qurxinaysaa daruuraadkii saas daraaddeed markaad miisaamayso mas'aladu ma daruuraad bay kula gashay ma xaajiyaad bay kula gashay ma taxsiinaadkii bay joogtaa labadada iyadana sidaas waa loo kala xoojinaya dawaabidda meelahaasna waa laga fiirinaya dhinac kale haddaynu ka fiirinnana yaa sidaa wax u miisaami kara waa su-aasha muhimka ah yaa sidaa wax u miisaami karoo war tilaabadan ama shaygan ama waxani dhibkiisa maa badan dheeftiisa maa badan maslaxa maa ku jirta mafsado maa ku jirta miyay siman yihiin yaa saa wax u miisaami kara waxaa u miisaami kara alcaalim altaqiy alcaarif bilwaaqic caalim biاlaxkaam wa caalim bilwaaqic wاlrabbaani taqi intaa in laga helo ruux axkaamta diintana aqoon u leh oo caalim ah waaqica iyo waxa uu ka hadlayana fahansan isla markaana alla ka cabsi ku jiro iyo warac iyo xalaal miirad ku jiro ninkaa weeye ninka miisaami kara masaalixda iyo mafaasidda miisaami kara sidaas daraaddeed intaaba haddii laysu fiiriyo masaladu dawaabid iyo xuduud bay yeelan laakiin markii laga saaro ama ciddii fiirin lahayd baa waxaa laga dhigay cid kasta ama cid aan mudnayn baa laga dhigay inay gasho oy fiiriso oy miisaanto waa khaldamaya marka natiijadu ama dawaabiddii culimmadu u dejisay baan la marin natiijadu markaa waa khaldamaysa mafsadaa lagu dhacayaa iyadoo markaa maslaxa la raadinayo marka dawaabid way leedahay kutubna waa laga alifay culimmada qaar ku takhasusayna waa jira oo muxuu ahay kutubbaaba si gooniya looga alifay cilmigan ku saabsan cilmu lmasaalix walmafaasid wallahu aclam